السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorso cusub Effective Negotiation Skills maanta waxaan bilaabaynaa mawduulkii koowaad Introduction to Negotiation Skills mawduulkan waa mawduul hordhaca runtii oo aynu si hordhaca xirfadda negotiationka amaba gorgortanka amaba waanwaanta amaba wadahadalka aynooga hadli doono laba qaybaan u qaybinay part 1 iyo part 2 topicyada aan ku baran doono waxay kala yihiin waxaynu qeexi doonaa marka hore what is negotiation waa maxay negotiation sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa different contexts of negotiation meelaha kala duwan uu negotiationka amaba waanwaanta ay ka dhici karto sida ganacsiga siyaasadda waan ka hadli doonaa the different types of negotiation noocyada kala duwan ee negotiationka waan ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay the importance of negotiation ayadana waynu ka hadli doonaa sidoo kale caqabadaha ku hadaaman gorgortanka iyo waanwaanta iyo wadahadalka dadka dhexmar ayadana waynu ka hadli doonaa insha Allah haddaba aynu bilaabno what is negotiation waa maxay negotiation negotiation is a process by which two or more parts reach an agreement on an issue of mutual concern. It is a common part of everyday life and it is used in a wide variety of settings including business, personal and political contexts. Negotiationka waa processka iyo habraaca iyo qaabka labo amaba wax ka badan laba party ama wax ka badan labo that party wuxuu noqon karaa laba shakhsi laba group ama wax ka badan ay ku gaarayaan heshiis arrin mutual concern ay labadooda daneynayaan one iyo wadahadal ay ka galayaan arrin si ay heshiis uga gaaraan so marka negotiationka waa arrin nolosheena ka mid ah it's everyday life ay qayb ka tahay runtii waxaana loo isticmaalayaa settings kala duwan hadday tahay businesska hadday tahay politicalka siyaasadda iyo hadday tahay personal midda shakhsiga ahba runtii ma jirto maalin uu qofka soo maraayo ilaa wuxuu arkayaa contexts iyo xaalado iyo settings uu negotiation uu galayo so hadday tahay dhanka ganacsiga hadday tahay dhanka siyaasadda amaba hadday tahay personal lifeka waxaynu arki doonaa examples marka different contexts of negotiation waa maxay goobaha iyo meelaha kala duwan uu waanwaanta amaba wadahadalka dadka u dhexmari karo businesska ayaa ka mid ah these are negotiations that take place between businesses or organizations waa waanwaan iyo wadahadal iyo gorgortan dhexmaro businessyada iyo hay-adaha organizations they can involve a wide variety of topics markii laga hadlayo businesska tobicyo kala duwan ayaa waanwaan wada hadal laga geli karaa sida contracts heshiisyada dhexmaraya mathalan contract in shirkadda loo dhiso dhismo in shirkadda muxuu ahaa loo qabto hall sales yani wax la kala iibsado sida shirkad iyo supplier mathalan mergers in laba shirkadood ay merging sameeyaan amaba ay isku tagaan oo ay one company ay noqdaan yani gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan arrintaas ku saabsan oo kaleet in laga galo so marka there are so many examples oo shirkadaha iyo organizationada iyo businessyada ay waanwaan u dhexmari karto in between them for example a company might negotiate with a supplier to get a better price on raw materials مثلا waxaa laga yaabaa company ama shirkad in ay negotiation iyo gorgortan iyo waanwaan wada hadal la gasho supplier shirkad wax supply garayso raw materials مثلا for example raw materials waxaa loola jeedaa طبعا soo taqaanaan agabka ceerinka ah ee loo isticmaalo productionka مثلا for example haddii ay tahay warshad samaysa dharka مثلا waxay u baahan tahay cotton suufkii u baahan tahay so marka shirkad suufka supply garaysa مثلا in gorgortan iyo waanwaan la galo si looga helo مثلا better price wanaagsan ee ka wanaagsan midka ay offer garaynayaan sidoo kale contextyada negotiation waxaa ka mid ah personal negotiation yani negotiation oo la xiriira personal these are negotiations that take place between individuals waa waawaantii wada hadalka dhexmarayso ashkhaasta yani businessya maaha ashkhaas عادي aniga adiga oo kaleeto مثلا they can involve a wide variety of topics dadka markii ay waanwaan galayaan waxyaabo badan ay ka wada hadli karaan maxay ka hadli karaan مثلا salaries ay ka hadli karaan shaqaale iyo loo shaqeeyo مثلا oo ka wada hadlaayo mushaar مثلا يعني meeqaan ku siinaa intaasaan ku siinaysa may intaana ku siin karaa gorgortan noocaas ay wada hadal iyo waanwaan relationships مثلا dadka xiriir
إنه دحمره negotiation كسميان أما با child custody مثلا يعني إيش محوها يعني for example لو وقفت مركي كلا تكان like this for example a couple might negotiate their finances after a divorce لو وقفوا مثلا كلا تجي أو إسفري in a إيش negotiation كجلان finances كي العجي طبعا وحلا هذا وضمنها يوروب iyo Mareykanka runtii systemka noocaas uu ku jiro ama child custody مثلا ilmihii hayn doono ma adiga hayn doono ma aniga hayn doono so marka qofka bini aadamka marka gorgortan waxaad ka galaysaa مثلا markaad wax iibsanayso oo aad aad suuqa tagta مثلا aad rabto inaad iibsato gaari ama other products negotiation aad ka galaysaa price-ka si aad u hesho the best price so marka in our everyday life waxa waaye at personal levels dadka waxay galayaan negotiations sidoo kale political context-ga asagana runtii negotiation dadka waa ay sameeyaan these are negotiations that take place between governments or political entities waa negotiationka iyo wadahadalka iyo waanta iyo gorgortanka dhex marayo dowlado iyo dad political entities amaba yani entities siyaasadeed yani مثلا for example axzaab siyaasadeed oo wadan ka shaqeeya yani waan dhexdooda ay marayso amaba dowlado laba dowladood ama saddex dowladood amaba dowlado ku midaysan urur they can involve a wide variety of topics so markii la joogo politics and political arena topicyada negotiationka laga geli karo aad bay u kala duwan yihiin waxaa ka mid ah مثلا treaties ayaa ka mid ah heshiisyada iyo mucaahadaadka ay wadamada ay galayaan sidoo kale trade agreements heshiisyada dhanka ganacsiga ayaa waa wada hadal laga galaya peace deals dealska dhanka ishaq muxuu ahaa peaceka iyo nabadeynta yani for example yani in negotiation laga galo for example مثلا halkan the United States might negotiate with North Korea to denuclearize the Korean مثلا يعني waan wada hadal dhaxmarta Mareykanka iyo North Korea oo ku saabsan in jasiirada Korea the Korean Peninsula laga dhigo mid ka caagan nuclearka hubka nuclearka denuclearization مثلا for example هذا مثلا for example dagaalka Sudan ka socdo jidda waxa ka socdo negotiation oo labada general ay is haysatay ee dagaaltamay oo ay dhexdhexaadinayaan mediation waan ka hadli doonaa runtii later on Mareykanka iyo Saudi Arabia so halkaas waxa ka socda negotiation waa between two political entities laba political entity oo hal wadan ka shaqeeya laba wadanna negotiation waa ay yeelan karaan oo ay ka wada hadli karaan ayma badan oo quseeyo ganacsiga iyo other issues okay different types of negotiation marka negotiationka noocyo badan oo ku yimaadaa waxaa ka mid ah noocyadaas win-win negotiation wax loo yaqaano this is the goal of most negotiations and it is where both parties walk away from the negotiation feeling like they have gotten something they wanted win-win negotiation waa negotiation oo labada party ay ka qayb galayaan negotiationka ay win-win ay yihiin oo labadoodaba ay yani ishay kuwa guuleystay ay yihiin oo yoolkii hadafka ay lahaayeen ay ka gaareen and this is the goal of most negotiation runtii negotiationka iyo wada hadallada iyo gorgortanka iyo waanwaanta inta badan dadka dhexmaro hadday tahay business iyo political amaba individual hadafka waxa waaye labada group amaba waxa ka badan ee negotiationka u dhexeeyo inay negotiationkoodu ku dhammaado win-win situation oo ah xaalad labadoodaba ay aflaxeen yoolkii hadafkii lahayn ay gaareen and it is where both parties walk away from the negotiation feeling like they have gotten something they wanted waa xaalada yani labada party ee negotiationka u dhaxeeyo wada hadalka markuu dhamaado ay ku tagayaan ayadoo mid walba uu aaminsan yahay inuu wax la taga meesha uu doonayo nooca kale waxaa loo yaqaanaa win-lose negotiation ayaa loo yaqaanaa this is where one party gets what they want and the other party does not win-lose waxa waaye waa xaalad mid ka mid a partiga ee negotiationka ama kooxda negotiationka ku jirto ay win garaynayso waxay rabta ay helayso midda kalena ay lose garaynayso this type of negotiation is often avoided noocan oo kale negotiation inta badan waa in la avoid gareeyo because as it can damage relationships and lead to future problems because heshiiska noocan ah waa in laga fogaado sababtu ah wuxuu xumeynayaa xiriirka waxaana uu abuuri karaa future problem ayuu abuuri karaya مثلا for example shaqaale iyo loo shaqeeyo markii ay negotiation ay galaan uu negotiation ku dhamaado in shaqaalihii mushaar aan u qalmin lagula heshiiyo oo taas uu win uu ku noqdo the employer qofka shaqaalaysiinaya
then qofkaas shaqaalaha ah with time waqti kadib wuxuu bilaabayaa inuu dareemo in la dulmiyey, wuxuu bilaabayaa inuu dareemo in heshiiskii la galo uusan mid cadaalada uusan ahayn, therefore-na marka problems ayaa imaanaya. Likewise in business markii la joogo laba company ama laba shirkadood supplier iyo shirkadii kale مثلا haddii heshiis ay galaan uu supplier ka dareemo amaba shirkadii ay dareento in la dulmiyey yani personal level sidoo kale laba qafood مثلا for example yani you know so win lose-ka runtii waxa waaye in the long run waxaa ka imaan doona negative feedback ayaa ka imaan doona, so marka it should be avoided. nooca saddexaad waxa weeye lose negotiation. This is the worst type of negotiation. waa nooc wuxuna la yidhi wada hadallada iyo waawaanta, sababtoo ah it's where both parties walk away from the negotiation feeling that you know like they have lost. waa xaaladda negotiation iyo wada hadal iyo waan labada dhinac ay negotiationka ku jiro ay kaga baxayaan negotiationka ayagoo dareemayaan in labadoodaba ay khasaareen or they have lost oo waxay u yimaadeen aysan helin. This type of negotiation should be avoided at all costs. noocan oo kaleeto oo negotiationka waa in laga fogaado at all costs, sababtoo ah yani in the long run wixii way soo noqonayaan oo way soo laba kacleynayaan oo mar kale waxaa loo baahnaan doonaa another negotiation process in la galo, because labada partiba waxay dareemayaan in negotiationkii uusan ahayn mid cadaalad ku dhisan oo danahooda iyo maslaxadooda ay ka heleen. So marka the best one waa nooce waa win-win negotiation amaba win-win situation oo ah xaalad labada dhinacba ay dareemayaan yoolkii hadafkii ay lahaayeen ee negotiationka inay gaareen. The importance of negotiation. waa maxay muhiimadda ay leedahay negotiation? Negotiation is an important skill to have in today's world. adduunyada maanta la nool yahay qofka inuu negotiation skill amaba xirfadda waanwaanta wada hadalka iyo gorgortanka inuu lahaado waa xirfad aad iyo aad muhiim u ah. It can help us to get what we want in a variety of situations. waxay naga caawinaysaa inaynu helno waxaan u baahannahay situations kala duwan, hadday tahay business, hadday tahay political, hadday tahay personal, and it can also help us to build relationships and resolve conflicts. sidoo kale xirfadda waxay naga caawinaysaa inaynu dhisno xiriiro oo aynu xalino conflicts iyo khilaafaad. Some of the benefits marka daan soo koobno waxaa ka mid ah getting what you want, inaad hesho waxaad rabto, waxaad want, you know what you want, you know inaad hesho. Negotiation can help you to get what you want in a variety of situations. Negotiationka iyo wada hadalka iyo waanwaanta iyo gorgortanka wuxuu ka caawinaa inaad hesho waxaad rabto xaalado kala duwan. yani mar walba kuma helaysid waxaad wanto awood iyo maquuqin iyo qayle kuma helaysid yani particularly in the political context markii la joogo yani you know wax badan for example Soomaalida oo kaleeto intaasoo sanad la dagaaltamayay yani awood wax baa lagu keeni waayay so marka in business sidoo kale waxyaabo badan aad rabto hadday tahay price wanaagsan inaad hesho, product quality fiican inaad hesho, yani contract yani danahaaga ku jiro inaad saxiixato, waxaas oo dhan waxaad ku heli kartaa through negotiation. For example, you might use negotiation to get a better price on a car. مثلا for example at individual level gaari aad rabtaa inaad iibsato, xirfadda negotiationka iyo gorgortanka haddaad leedahay waxay ka caawinaysaa in kaarigii مثلا aad rabto inaad iibsato price fiican aad ku hesho, to get a raise at work amaba مثلا in mushaarkaaga lagu kordhiyo because waxaad ku wanaagsan tahay xirfadda negotiationka oo maamulka sare inta la fadhiisato and you negotiate on a wage rise amaba salary rise in yani lagu raise gareeyo mushaarkaaga amaba to resolve a conflict with a friend مثلا حتى at individual level khilaaf kala dhacay saaxib aad ku xaliso because of xirfadaad aad leedahay oo negotiationka. Building relationships sidoo kale negotiation wuxuu ka caawinaa inaad xiriiryo aad samaysato aad dhisato oo beri ku anfici doonaan. Negotiation can help you to build relationships with other people. When you negotiate in a fair and respectful way, you show that the other person that you value their opinion and that you are willing to compromise. markaad negotiation aad samayso si cadaalad ay ku jirto iyo ixtiraam, fair and respectful, waxaad muujinaysaa aad u muujinaysaa qofka kale, you show the other person aad tusinaysaa that you value their opinion, inaad ra'yigooda aad ixtiraamayso, and that you are willing to compromise, inaad diyaar u tahay inaad tanaasul aad samayso. This can lead to stronger relationships in the future. taas marka waxay abuuraysaa xiriir aad u adag mustaqbalka fog in aad la yeelato qofkaas aad negotiationka idin dhexmaray.
for example hadduu shaqaale yahay shaqaalahaas haddii negotiationka si fair iyo respectful ah aad ula gasho mushaar fair ah working condition oo fair ah oo cadaalad ku dhisan haddaad kula heshiiso then shaqaalahaas wuxuu noqon doonaa mid loyal ah daacad u ah organizationkiisa xiriir fiican aad la leedahay resolving conflict sidoo kale xirfadda negotiationka waxay naga caawinaysaa inaynu xalino khilaafaadka negotiation can help you to resolve conflicts in a fair and mutually beneficial way xirfadda negotiation wuxuu ka caawinayaa in aad xaliso khilaafaadka si cadaalad ay ku jirto oona labada party conflict ka dhexeeyo danahooda ay ku jiraan when you negotiate markaad negotiation aad samaynayso you are able to listen to the other person's point of view waxaad awood u leedahay inaad dhegaysato qofka kale ra'yigiisa iyo fikirkiisa and to find solutions that work for everyone involved inaad hesho xal oo qancinayo oo u anfacayo dadka dhammaan ee involved ku ah conflictiga iyo khilaafaadka markaas ay taagan because through negotiation waanta ayaa lagu xaliyaa khilaafaadka so marka negotiation marka wuxuu naga caawinayaa inaynu awood u yeelano inaynu xalino khilaafaadka ee noqon kara mida personalka ah khilaafaadka nadax markaro anaga iyo dariskeena مثلا anaga iyo asxaabteena anaga iyo spouseskeena dadka xiriirka guurka naga dhaxeeyo amaba مثلا in the world of business مثلا inaynu xalino khilaafaadka ka dhaxeeya shaqaalaha dhexdooda khilaafaadka ka dhaxeeya shirkada iyo shirkadaha kale مثلا suppliers oo kale at the political level inaynu xalino khilaafaadka political entitieska iyo partieska ka dhaxeeyo through negotiation marka waxaa jiro there are a lot of challenges ayaa jiro oo la xiriiro negotiationka insha Allah waxaynu kaga hadli doonaa cutubka xigo hadduu Ilaahay yiraahdo inta ku kulmi doona cutubkaas waxaan ka tagay fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh